السلام الله عليكم ورحمته وبركاته لما أصحابتا قارقة meel kastoo dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamij cusub oo taxaniina noqon doona barnaamijkan waxa idin soo diyaariyay iskuulkiisa dowladda walaalkiin Cabdirasaaq Cusmaan Barre maanta waxaan rabaa inaan idin wadaago fiidiyogan aan idinku tusayo mataqaanay qaabka profile picture-kaaga aysan dadku u wada arkayn profile picture-kaaga aad saaratid hadda mataqaana marka raba inaan profile cusub saarto Facebook-ga sida caadiga ah dadku dhan wada arkayaan oo public dadka oo dhan comments ay kasoo dhiban karaan like na way saari karaan laakiin hadda waxaan rabaa in aan mataqaanay dadku aysan wada arkin oo profile picture mar walba aan iska bedelan karo dadkuna aysan arkin sida caadiga ah Facebook-ga soo kacsanayna Facebook-ga markuu inoo soo kaco sidoo kale markuu inoo soo kaco waxaan rabaa in mataqaanay aan bedelo profile picture hadda ii saaran oo kadibna aysan asxaabtayda aysan arkin sida caadiga ah waxaan tagayaa oo aan dooranayaa profile picture-kayga ayaan dooranayaa profile picture-kaygan gudaha ayaan dooranayaa si aan u bedelo aan sameyn marka daba waa kana profile picture markaan saas kale u doorto caadi meesha sida loo bedelo kale ayaan u bedelayaa waxaan taabanayaa select profile picture meeshan ay ku qoran tahay select profile picture dadka dhan wada yaqaanaan sida loo bedelo sida mataqaanaa change-ga lagu sameeyo profile picture-ka dadka dhan way yaqaanaan meeshaas hadda isbari mayno hadda waxaan rabaa inaan ku sameeyo isbedel inaan ku sameeyo aan rabaa sawirkan ayaan rabaa inaan saarto marka sawirkan ayaan rabaa inaan saarto profile picture-kayga kadibna asxaabtayda aysan arkin wax comment iyo mataqaanaa like-na aysan saari karin kadib waxaan sameynayaa sidoo kale markuu yahay use ayaan dhahayaa use caadi ayaan isticmaalayaa oo use caadiga ayaan isticmaalayaa sawirka waa kaas hadda waa isticmaalaa loo jeedaa profile picture-ka ayuu saarmay waa kaasa kadib sida caadiga aan naqaano wuxuu ku soo galayaa gudaha meesha gudaha ayuu ku soo galayaa waa kana meesha gudaha ayuu soo galay waa ujeedaan picture ka saarto wuxuu soo galay meesha gudaha oo asxaabtu caadiga ah like ay saari karaan comments way ka dhiban karaan waa kana hadeer marka asxaabta caadiga like way saari karaan comments way ka dhiban karaan sawirka hadda aan soo dhigay oo aan profile ka saartay laakiin waxaan rabaa in aysan qofna arkin mar walbana mataqaanay aan qarsan karo oo saan rabaa inuu bedeli karo profile picture-kaas marka si aan u bedelo sawirka hadda aan soo dhigay waa ujeedaan meesha sare waxaa hadda 3 dhibcood ayaa tiifa meeshan 3 dhibcood ayaan ku dhufanayaa 3 dhibcood markaan ku dhufto waxaan sameynayaa waxaan ka sii dooranayaa qaybtan hadda ee warqadan waxaan ka sii dooranayaa edit post ayaan ka dooranayaa edit post markaan ka doorto waa ujeedaan meeshan waxaa ku qoran edit post ayaa ah edit post oo meeshan mataqaanaa aan ka habeyn karo sawirkayga wax qoraal aan ku dari karo mataqaanaa laakiin hadda waxaas kale dhan ma khuseeyaan waxaan rabaa kaliya inaan mataqaanaa aysan asxaabtayda aysan arkin waxaad dooranaysaa meeshaas ay ku qoran tahay public oo ka hooseysa ciwaankaaga magaciisa meesha ka hooseysa dooro ay ku qoran tahay public markaan doorto sida caadiga ah hadda waxaa ii soo baxday meeshan ay ku qoran tahay tiktok ay saaran tahay public ah iyo meeshan friends asxaabtayda arki karo dadka followiska oo aniga mataqaanaa followiska ah ma arki karaan meeshan waxa ku xiga waa friends accept asxaabtayda marka laga reebo hebel marka laga reebo inta kale ha arkaan qofkaan hadda aadan axmed oo kale marka laga reebo inta kale asxaabta ha arkaan ayaa dhahe laakiin taas maaha nadar tan khusaysa waa only me ayaa ka dooranaysaa only me marka ka doortid caadi ayaad ugu laabanaysaa toos uga laabo kadib wataas meesha hadda public ay ku qornayd si hadda aad ujeedid isbedel ayaa ku dhacay oo qofil ayaa saaran waxaana ku qoran only me meeshaas daaratid marka hore waxay ahayd public haddana way isbedeshay oo qofil ayaa saarmay waxayna noqotay only me oo aniga kaga ayaa sawirkan arki karaa dar profile picture-ka kadib waxaan dhahaynaa save garay meeshaas kore ay ku qoran tahay save ay ku qoran tahay ayaa taabanaysaa save wakaas hadda save ayaan iri save markaan dhahay isbedel ayaa dhacay fiiri meeshan waxaad ku arkaysaa qafil ayaa saarmay sawirkan fiiri ciwaanka hoostiisa meesha ay ku qoran tahay update his profile picture meesha ka hoostiisa waxaa ku aragtaa hadeer in mataqaanaa isbedel uu ku dhacay oo qafil uu saarmay waxayna ka dhigan tahay qof arki karaa ma jiro hebel iyo faarax iyo maxamed iyo cabdi mid qof arki karaa ma jiro qof comment ka dhiban karaa ma jiro mar walbana aad mataqaanaa profile-ka aad iska bedeshid saas kala aad sameynaysaa waxaad sameynaysaa in mataqaanaa aad caadi u bedeshid markaa mataqaanaa caadi u bedeshid kadibna markuu meeshaan soo galo aad ku dhifatid saddexdaas mataqaanaa dhibcood ee jiifa saddexdaas dhibcood halkaas ka muuqda ee jiifa kadib warqadan ku soo baxaysa warqadan markuu soo baxdo waxaad ka dooranaysaa edit
edit post marka dooratid meeshaas magaca ka hooseysa ay ku qoran tahay only me marka hore waxa ku qoran public ayaa ku qoran oo dadka dhan ayaa wada arkaya laakiin marka mataqaanaa hadeer only me ayaa ii dooran only me na waxay ka dhigan tahay kaliya ayaa arkayo qof arkaya ma jiro mar walba saas u bedeli kartaa profile picture-kaaga iyadoo mataqaanaa qofna uusan arkayn oo mataqaanaa sawirka rabtidna aad saaran kartid waad ku mahadsantihiin daawashada fiidiyoga asxaabta qaaliga ah thanks all of you